السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد ملك استاجوكتان سو دوادا صاحبada Jarmalka jooga iyaguna aad soo dhawaada saaxiibayaal mowduuc baan doonaynaa maanta ka hadalno sadogtihiin waxa soo dhow doorashadii dalka Jarmalka oo muddo bilo yar ah ayaa ka dhiman adigu qiyaastii bisha 9aad ayaa la rajeynayaa inay doorashadii weyneed ee dalka Jarmalka dhacdo kadibna uu xisbi cusub ama xisbiye cusub ay dalka la wareegaan oo markaasi uu yimaado qof Angela Merkel bedel lahaa marka sadogtihiin doorashada marka la gelayo waxa ka soo horeeya aragtiyo iyo waliba buugaag iyo barnaamijyo ay soo bandhigaan asxaabtu kuwaasi oo ka codsada dadku inay doorasho u codeeyaan si ay arrimaha noocaas iyo noocaas u qabtaan dabcan arrimaha Jarmalka ama Yurubtu way ka duwan yihiin kuwa Soomaalida inta badan lama qiimeeyo wax maxay sameynayaan laakiin halkan waxa la qiimeeyaa maxaa uu sameynaya xisbigaasi maxuu yahay ujeedadiisu buugga wata aragtidiisa ma ku taageersanahay mid kasta marka aragtidu isagu qabo iyo sida uu doonaya ayuu sameeyaa marka bal dhowr xisbi ayaa buugaagtoodii soo saaray oo inta badan kusoo qaatay dhanka arrimaha qaxoontiga iyo khaasatan qaadashada dhalashada Jarmalka qofka qaxoontiga ah ee dalka Jarmalka yimaada goorma ayuu Jarmal noqonayaa sidee ayuu Jarmal ku noqonayaa marka saddex xisbi ayaa ilaa hadda buugaagtooda markaasi xoog uga hadlay arrintaasi isla markaasina dhanka qaadashada dhalashada dalka Jarmalka aad barnaamijkooda ugu soo hadal qaaday marka taas ayaan doonaynaa inaan eegno isla markaasina bal falanqeyno sidee hore u ahaan jirtay sidee isu soo bedbedeshay iyo hadda sida ay macquulka u tahay inay isku bedesho qaabka aad u qaadan karaysid dhalashada dalka Jarmalka sharciyada lafteeda dadku ay haystaan ayaa lagu kala duway xisbi kastaana aragti gaar ah ayuu qabaa tan maaha waxa hadda la sameynayo marka doorashadu ay dhacdo kadib haddii xisbigaasi la doorto ama uu haddaan noqon xitaa councilor laakiin uu xukuumadda ka mid noqdo markaas ayuu waxa uu soo bandhigayaa ajendihiisa uu hadda doorashada ku galay ee ahaa inuu waxa sameeyo haddii markaasi loo codeeyo fikradaasi lagu raacana saas ku horgelaya haddii isagu xisbigaasi guuleysto oo noqdo ka hogaamin doonana saas ayuu markaasi ku noqon doonaa hoggaanka dalka marka waxba yaan faahfaahin gelin waxa idin eegi doonaa ujeedada aan halkan isugu nimiyo mowduucan ka hadlayno haddaynu dhalashada dib ugu noqono horta dhalashada shuruudo ayaa lagu xidhaa qofka dhalashada markuu qaadanayo shuruudo ayaa looga baahan inuu buuxiyo shuruudahaas marka uu dhammaystiro kadib ayuu qofka dhalashada Jarmalka qaadan karaa ama Jarmal noqon karaa shuruudaha waxa ka horeeya waqti walaalo qofku waqti inta leeg markuu joogo ayaa looga baahan inuu shuruudahaas buuxiyo kadib uu dhalashada xareysto ama uu qaato labadii kun ka hor qofku waxa uu sugi jiray marka uu dhalashada qaadanayo ama uu doonayo inuu dhalasho qaato waa inuu wadanka Jarmalka ku noolaadaa 15 sano kadib ayuu qofkaasi markaasi uu xareysan karaa dhalashada ama uu qaadan karaa dhalashada Jarmalka ama uu noqon karaaba qof Jarmala haddii uu buuxiyo shuruudaha looga baahan yahay shuruudahaas qaar adag iyo qaar jilicsan bay ku jiraan waxyaabaha qaar ayaa adiga kugu xidhan waxbarashadaada iyo inaad waddanka ka shaqaysid kuwa kale ayaa waajib kuga inaad buuggaagu nadiif ah noqdo aan wax dambiya dalka ka gelin taa lafteeda oo inta badan dadka ku sababtay inay dhalashada waayaan ama xuquuqdii dalka ku lahaayeen ay waayaan waa tahay marka 2000 ayaa wixii ka dambeeyay ayaa arrintaasi la soo bedelay wixii 2000 ka horeeyay 15 sano ay ahayd 2000 kadibna waxay noqotay 8 sano oo iminka inta ugu badan meelaha qaar hadda si kale u taqaanid ma garanay laakiin Jarmalka caadiyan qofka dhalashada 8 sano ayuu ku qaataa qofkaasi waxa laga rabaa inuu shuruudo badan buuxiyo oo ay ugu waaweyn yihiin qofkaasi inaanu wax dambiya ka gelin dalka intuu joogay inuu haysto shahaadada B1-ska oo luqadii Jarmalka basigeedii garanayo qofku inuu isku filan yahay oo shaqaysto aanu meelna ku xidhnayn oo aanu caad ka qaadan sidoo kale waa inuu qofku isagu guri uu degan yahay ay jirtaa oo uu leeyahay hoy ma qof darbi jiifa lama siinayo sharci ama qof kaam ku jira qofku waa inuu guri isagu leeyahay gurigaasi isagu uu saxeexday guriga khasab ma aha guriga adigu leedahay oo aad iibsatay laakiin waa gurigaaga waa inuu magacaaga ku qoran yahay micnaha adiga ku kireysan yahay guriga adigu waa inaad guri degan tahay meel degan tahay address leedahay qof magaalo ka amni garaysanaa tahay shuruudaha noocaas ayaa laga rabaa marka bal aanu eegno saddexda xisbi waa xisbiga la yiraahdo magaciisa FDP iyo xisbiga Gruna iyo xisbiga Linke ama bidixda ayaa soo saaray qorshahooda dhanka sharciyada xisbiyada dambena oo ka dambeyn doonaan oo mid walba fikradiisa gadaal ayuu nooga soo gudbin doonaa marka saddexda xisbi ayaa dhaqso ayaa insha Allah idinku soo gudbin doonaa aan ku bilowno xisbiga koowaad waa xisbiga barnaamijka xisbiga FDP ama Free Democratic ama xorriyadda dimuqraadiga xorta ah oo kale ama xisbiga magaciisa la FDP
ayaa sheegay haddii uu xukuumadda soo galay inuu jinsiyadda ka dhigi doono 4 sano oo keliya, halka hadda waa 8 sano. 4 sano oo keliya ayuu sheegay inuu jinsiyadda ka dhigi doono. Qofkii 4 sano ku noolaada, shaqeeya, dalkana aan dembi ka gelin, haysta BINs, guri ku nool, 4 sano ayuu ku noqonayaa Jarmal ama uu qaadanaya dhalashada Jarmalka. Adigu qodobadan aad inta taabtay qodobo kale ay kusii jiri karaa, shuruudaha markaasi lagaa rabo ayay ku xidhan tahay. haddii aad 4 sano dalka Jarmalka joogtid, shuruudihii lagaa rabay aad dhalashada Jarmalka ku qaadanaysidna aad buuxisid, Jarmal ayaad noqonaysaa. ayuu barnaamijkiisa ku wataa, isla markaasina doorashada ku gelaya xisbiga FDP. أنا أقول بل حسب قائما كأجوا أود بدنا ما أوران كرنا وحسب أجوا أود بدنا، لكن هو حسبي رنتي دبس الرجال عليه وأودي سمال في عمر يستها غير فرب بدنا حستا، وحسب جرونا أما حسب أخطر كأه أما جرين كأه أيا سجونا بوجيسا لأنك أسكت صدر صدي أو يلي شان سنة قفكو هدي دلك كنول وحاو خليا هذا جرمك قفكو حقوق عنتيجة دلك جرمك مادة شان سنة كنا على هذا وحاو خليا dhalashada Jarmalka ama 5 sano ayaa qofka lagu siinayaa dhalashada Jarmalka. Hadaad wax baratid ama aad bildisameysid ama aad wax barasho kala wadid, aad shaqaysatay ama hadaad wax baranaysid iyo hadaad shaqaysanaysid, markasta waa isku mid bay ka dhigantay. Haddii aad shaqaysanaysid, haddii laga rabo inaad shaqaysatid oo aad wax baranaysid waqtigii shaqada laga rabay, waa shaqaysanaysid ka dhigantahay oo wax barashada iyo shaqadu halkan isku mid ayay ka tahay. marka qofka waa inuu wax baranaya ama shaqaysanaya, waa inuu address leeyahay oo meel uu ku nool yahay oo guri leeyahay, waa inuu buuxiyaa shuruudaha kale ee markaas looga baahan yahay 5 sano gudahood. markaas 5 sano ayuu ku helayaa dhalashada. qodob kale ayuu guruna ku daray waliba muhiim ah, maadaama xisbi yahay awood weyn, isla markaasna qodobka ku jiraana uu ka sii muhiimsan yahay qodobada kale. qofka haysta 3 sano oo qaxoontinimo ah, qofka qaxoontinimo la siiyay sharciga buluuga la siiyay 3 sano haysta, qofkaasi 3 sano gudahood haddii uu shuruudaha ku buuxiyo, halkii 3 sano loogu bedeli lahaa marka uu 3 sano ka dhamaato, toos ayuu Jarmal noqonaya. ka warama waxa bil ka hor baa wadanka timi, kadibna kaamado ku jira interviewga laga qaaday 3 sano lagu siiyay ama sharciga buluuga ah qaxoontinimada ah ama janeefada qof magac doon u yaqaana. hadduu sharciga buluuga ah qofka qaxoontinimada la siiyay ayaa lagu siiyay 3 sano ayaad wadanka, marka 3 sano baasaboorkaaga soo qaadatay, sharcigaaga soo qaadatay, wadanka soo gashay, noloshaadii aad bilowday. 3 sano baa asbalin baad ku qaadatay, guri baad degtay, wax dambiya maad gelin, cidna dhibaato maad geysan. 3 sano markaad asbalinkaaga dhamaysid, baasaboorkii casaaba hore lagaa siinaya. easy busy. waxaa laga yaabaa xisbiyada kale inay ka duwanaadaan, iyaguna aragti ka duwan keenaan, laakiin tani waa xisbiga guruna weliba la rajeynaya inuu awood badan ku yeesho doorashada soo socota. ayaa isagu qorshahaasi wata haddii uu ku guuleysto ayuu yidhi oo uu xukuumadda ka mid noqdo inuu qofka 3 sano haysta uu uga dhigi doono 3 sano keliya ay ku qaadanayso, laakiin qofka sharci kala haysta aan 3 sano ahayn, qofkaasi inay ku qaadanayso 5 sano inuu shuruudaha ku buuxiyo, kadib 5 sano kadibna uu dhalashada hore ka qaato. xisbiga dilinka ayaa ama xisbiga bidixda ayaa isaguna fikradaas 5 sano qaba. wuxuu leeyahay qofkii 5 sano dalka Jarmalka ku noolaada xaq ayuu u yeelan doonaa jinsiyada buuxiyana shuruudihii laga rabay inuu qaato jinsiyada Jarmalka, xaq ayuu yeelanayaa, jinsiyada ayaa la siin doonaa. kale marka doorashadu dhamaato, qofka Angela Merkel bedela qofku doono ha noqdo, inkastoo xisbiyadii uga awooda badnaa markaasi haddii ay israaci lahaayeen laftooda aad moodid inay tashuush ku dhex furan yahay oo murankoodu uu yara badan yahay. Angela Merkel meesha ay ka baxday, rag badan ay ku lagdamayaan oo dagaal badani meesha ka jiro. sidoo kale xisbiyo badan oo markii hore aan awood badan lahayna ay hoos soo kacayaan oo awood badan soo yeelanayaan, kuwii sarena ay hoos soo dhacayaan. coronavirus oo wax badan bedelay iyo jawigii oo aad isu bedelay. marka siday noqotaba ilaah baa og, siday noqotaba waan eegi doonaa. wixii xog soo kordhana markasta halkan ayay kala wadaagaya. saaxiib Rabadaan Kariim waa idinka.